بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin. waxaanan jeclahay inaan ugu bishaareeyo bisha barakeysan inoo dhalan doonta dhawaan. bishaas oo rajeynayno inay maaragtay inoo horseedo barwaaqo iyo nabad iyo dalka oo maaragtay inoo baraara iyo inagoo nabad ku wada noolaana. salaan kadib waxaan doonayaa inaan fikirkayga ka dhiibto oraah kasoo yeertay nin oday dhaqameed isku sheegayay oo runtii ummad Soomaaliyeed oo taariikh leh oo isir leh oo deegaan leh oo yani heritage fog ku leh dalka Soomaaliya uu ku aflagaadeeyay oo una ka dhigay dad marti ah oo dulin ah oo soo galooti ah wax xuquuqana aan ku lahayn dalka. runtii waxa wax laga xumaada ah ruux dhan oo isku sheegaya inuu yahay hogaamiye beel dhaqameed oo haddana abuuraya cadaawad iyo isnacayb iyo kala durugsanaan bulshada Soomaaliyeed ay ka soo daashay 20 sano ayaanu waxaanu ku jirnaa iscolaadin iyo sad kala buursi iyo maxaan ku yiraahdaa isdurkin. waxaan ka faa'iidnayna male, bal waxaan aragnay waxaan noqonay qaxooti, waxaan noqonay yani burcad badeed, waxaan noqonay argagixiso, waxaan noqonay dad dulli soo baxay. maanta qofka Soomaaliyeed wax qiimo ah kuma leh bulshada caalamka dhexdiisa. ummadan oo aan ka jawaabi karin wax isku haystaan. waxna si xumaa markana la weydiiyo la yiraahdo oo maxaa isku haysataan, qofka Soomaaliga wuxuu ku jawaabay yaqaan. dunida inta kale meelaha dagaalada iyo colaadu ay ka socdaan wax bay isku hayaan. haddii diin ha isku hayaan, isir ha isku hayaan, maxaan ku yiraahdaa ha isku hayaan maaragtay qowmiyado kala duwan dartood. yani ummadda Soomaaliyeed waxay isku haysato oo isku dagaalaysaa meesha ma yaalo. marka haddii aan hadalka guntiisa u soo laabto waxaan dhaliilaynaa inagoo ah aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed, waxgaradka Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed ee jecel in ummaddu wada noolaato. ruuxa Soomaaliga ay kugu luqadda ah, ay kugu diinta ah, ee kugu afka ah, ee kugu isirka ah, yani inta aaminsan inay yihiin walaalo anoo ku hadlay magacooda ayaan waxaan dhaliilaynaa oraahdii ka soo baxday ninka hogaamiye dhaqameedka sheeganayay hadda waqtigan la joogo ku baaqaya in uu dad colaadin doono, wamaca daalika haddana uu qowmiyad kaloo meesha degto kusii aflagaadeeyay. marka runtii wax laga xumaada weeye. waxaana rajaynayaa hogaamiye dhaqameedyadu waa qaybta keliya ee bulshada ka tirsan oo ay ku hartay waxa la dhihi jiray Soomaalinimo, wixii la dhihi jiray maaragtay nabad, wixii la dhihi jiray dadku isku, yani waa qaybta keliya ku hartay. marka qaybtaasina inay hadda u tafaxaytaan inay maaragtay colaad hor leh iyo maaragtay isir nacayb iyo kala badsi iyo sadbuursi, yani wax laga xumaada weeye. waxaan filayaa in laga waantoomi doono. haddii sad la kala bursanayo ama meel lagu gaarayo, Soomaali baa meel ku gaari lahayd. wax halkaana dhigayna waa u wada jeednaa. marka dantu waxay ku jirtaa in dadku wada noolaado. waxa la yiraahdaa coexistence ayaa dunida ka jira.
ummaduhu coexistence waxaa la dhahaa in la wada jiro yani in la wada noolaado la wada jiro dhulkii la wada wadaago yani nin baa wuxuu igu maamaya hadda ka hor wuxuu igu yidhi intaan ku iri waddankiisa wax ka weydiiyey wuxuu igu oranaya waddanka iyagu wuxuu yidhi waa cake wuxuu yidhi waa doolsho meel yaal doolshahaasna wuxuu yidhi ninba dhinaciisu ka qaniina dhinaciisu ka cunaya marka waddankan doolshaha ah iyo deegaankaa naga badan nin walba dhankiisa ha ka qaato ha ka qaniino marka waxaan ku baaqaynaa ummadda wada noolaasho iyo in dad taariikh leh oo Soomaali ah oo soo jireen ah oo macnaha isir iyo macnaha heritage ba kule dhul in marti laga dhigo ama waxa dulin la yiraahdo iyadana waan dhaliilaynaa. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.